assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaashayda sharafta leh ee ku xiran janalkayga. Wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa inooga digay shaydaanka lacanahullaah, waa cadowga koowaad ee bani aadamka. Nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagu amray in aan dhufays ka samaysanno shayaadiinta iyo waswaaskooda, innaga oo isaga difaacayna xuska alle subxaanahu wa tacaalaa iyo in aan alle uga magangalno shaydaanka. Balse waxaa jira shay ay sameeyaan muslimiinta badankooda, kaasoo sababaya in shayaadiintu ku faafaan guriga dhexdiisa. shayaadiintu waxay ku badan yihiin meelaha wasakhda ah, waxayna jecel yihiin meelaha nijaasada ah. Wuxuu xabiibkeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam inooga digay in aan iyagoo furan ka tagno musqulaha albaabadooda, maxaa yeelay waa guryaha jinka iyo shayaadiinta. Wuxuu yidhi rasuulkeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam: inna haadihi alxushuusha muxtadara, faidaa ataa axadukum alkhalaa'a falyaqul allaahumma innii acuudu bika min alkhubthi waalkhabaa'ith. musqulaha waxaa isugu yimaada jinka iyo shayaadiinta. midkiin haddii uu galayo musqusha ha yidhaahdo allaahumma innii acuudu bika min alkhubthi waalkhabaa'ith, ilaahayow waxaan kaaga magan galayaa shayaadiinta midkooda labka ah iyo midkooda dhadiga ahba. wuxuu insaanku isku dhiibayaa oo tala saaranayaa rabbigiisa subxaanahu wa tacaalaa, wuxuuna alle ooga magangalayaa khubsiga iyo khabaa'idkaba, maxaa yeelay suuligu waa meelaha khabaa'idka ah, khabiidkuna waa meelaha ay ku hoydaan shayaadiintu. sidaas darteed ayaan alle ooga magangalaynaa subxaanahu wa tacaalaa si aysan inoo waxyeelaynin shayaadiinta kooda labka ah iyo kooda dhadiga ahba. in musqulaha albaabadooda la xiro iyadoo la xusayo alle magaciisa subxaanahu wa tacaalaa waxay ka hortag u tahay in jinniyaashii ku jiray musqusha ay soo dhaafaan oo ay soo galaan qolalka kale ee guriga. sidoo kale wuxuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam nagu amray in haddii habeen la gaaro ama aan galabaysanno aan xiranno guryaheena albaabadooda innaga oo xusayna alle magaciisa subxaanahu wa tacaalaa, maxaa yeelay shaydaan ma furo albaab la xiray iyadoo la xusayo alle magaciisa subxaanahu wa tacaalaa. hadduu qofku ka baxo gurigiisa isagoo dhahaya bismillaah tawakaltu cala allah laa quwata ilaa billaah, waxaa lagu yidhaahdaa hudiita wa kufiita wa wuqiit, waa lagu hanuuniyey waana lagu ilaaliyey. shaydaanna waa uu ka leexanayaa, markaas buu shaydaanka kale ku yidhaahdaa kayfa laka miman hudiya wa kufiya wa wuqi, maxaad ka qaadi kartaa qof la hanuuniyey oo la waardiyeynayo. hadduu qofku markuu soo galayo gurigiisa iyo markuu wax cunayo uu xuso alle subxaanahu wa tacaalaa magaciisa, wuxuu shaydaanku dhahaa laa mabiita lakum walaa cashaa, caawa meel aad ku hoyataan iyo cashoba idiinma sugnaanin. hadduu qofku uu iska soo galo oo uusan xusin alle magaciisana, wuxuu shaydaanku shayaadiinta kale ku dhahaa adraktum faqad wajadtum mabiitakum wa cashaa'akum, waxaad hesheen cashadiina iyo gogoshiinaba. fallaahumma innaa nacuudu bika min ashaytaani alrajiim. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.